ciidamo aad u fara badan oo la sheegay inay ka mid yihiin mucaaradka waddanka Itoobiya ayaa la tilmaamay inay ka gudbeen xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. ciidamadan oo aad u hubeysan ayaa waxaa la sheegay in haatan ay ku jiraan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaan la tilmaamay in dhawaanahanba lagu soo tababarayay xeryo ku yaala dalka Kenya iyo sidoo kale Jubbada Hoose. waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamadan ay isugu jiraan dagaalyahano ka kala tirsan TPLF iyo sidoo kale ONLF. Cabdirashiid Macalin Gaas oo ka mid ah dadka sida aadka ah ugu dhundaloola arrimaha gobolka oo la hadlayay Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ujeedkoodu uu yahay inay qabsadaan gobollo ka mid ah Itoobiya isla markaana aag cusub oo dagaal ay ku furaan dawladda hadda ka arimisa dalkaasi oo in dhawaanahanba dagaal ka waday waqooyiga Itoobiya oo ay ku xoogan yihiin xoogga TPLF. walaal barnaamijkaasi waa barnaamij jira weeye nimankan hadda meesha dagaalka ka bilaabay waxay ka yimaadeen dhinacan xuduudda beembeenta oo Kenya meel la yiraahdo Kuda iyo Buurgaba iyo Samboni halkaas intii muddo lagu aruurinayay ilaa iyo Lamu halkaas ay ka soo gudbeen marka nimankaasi halkaas ay ka yimaadeen dawladda Kenya gudaheedana xiriir ku leeyihiin waxayna ku wajahan yihiin dhinacan Itoobiya markaas magac kasta ha lahaado kulli waa niman mucaarid ku ah Itoobiya Tigray ONLF waxyaalo badan bay isugu jiraan marka sidaa weeye waxaan hogaaminaya saraakiil ONLF iyo Tigray ah hogaaminaysa waxayna ku wajahan yihiin gobolkan Afdheer gobolka Liibaanna waa ku dhinacan mooyaala bariga dhaweyd ka soo galay marka nimankaas halkaas ku wajahan yihiin walaal ciidankaas halkaas ku wajahan yihiin gobolka Afdheer marka inta aanu ka warayno wadadan dheer bay soo mareen marka sidaa weeye sida aan ognahay al-shabaab waxay ka dagaalamaan gudaha Soomaaliya waa urur la yaqaano oo muctarifa oo wax isqariya ma waxa iyagu fuliyaana way sheegtaan oo dadka beenta ka sheega ma ahan laakiin barnaamijkan hadda 100 kilomitir gudaha Itoobiya saaka iyo xabadu ka socotaa afcade gudaygu 70 kilomitir u jira oo garanaysa xabada halka ka socoto marka intaasna ciribta ku dhufteen wixii joogay oo maleeshiyad ah iyo ku dhufteen marka nimankaasi hagaya waa ONLF iyo Tigray iyo niman isxambaarsan oo noocaas oo fara badan oo xitaa olaba ku jirta marka sidaa waxayna ku wajahan yihiin dawladda Itoobiya marka xagga Liibaan way ka socotaa barnaamijka. dawladda Itoobiya ayaa la tacaalaysa jabhado hubeysan oo ay ugu xoog weyn yihiin xoogaga TPLF kuwaasi oo mar ku dhawaaday in ay u ruqaansadaan dhanka magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.